barnaamijka shaqayso ha shaxaadine waxaan arkay dadkeenii reer North Eastern meel walbo ay joogaan saddexda county Mandera, county Wajir, county Garissa waxaan arkaa dhalinyaradii rag iyo dumarba xoogga la geliyay waqtiga la geliyay xoolaha la geliyay markay form 4 ka baxaan ama jaamacad shaqo ma helaan waxay rabaan inay qalin ku shaqaystaan xafiis inay wada fariistaan kursi inay helaan madax noqdaan suuragalna ma aha wixii dawladda wixii laga heli maayo wixii waa yar tahay maxaa marka loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in haddii qalin wax lagu waayo muruq ayaa jira waxa la yiri bun haddii la waayo bedelkiisa la helaa muruq ayaa jira xoog in wax lagu qabsado aqal ayaa jira ilaahay dhalinyarada xoog buu siiyay cimri buu siiyay caafimaad buu siiyay tharawaat yani waxa la siiyay maaragtay hanti badan baa dhulka taala marka waxa soo dhan waxa loo baahan yahay in muruqooda ay wax ku qabsadaan maxaa yeelay qalinka waxa ka horeeyay muruqa rasuulkana sallallahu alayhi wasallam alayhi qalin goormo bilaabay qalin wuxuu bilaabay 40 jirkiisii iqra markii la soo dejiyay nuun wal qalami wama yasturun markii la soo dejiyay 40 ka sano umada maxay ku nooleed shaqo ma aanay jirin miya ma yeesidee jirkiisii ayuu qalin ayuu xoog wax ku qaban jiray waa ku ariga raaci jiray haddana konton 12 jirkiisii businessman oo ahaa ganacsade ayuu ahaa marka muruqiisu maali jiray dadkana wuu maaragtay ku dhiirigelin jiray isagoo dhiirigelinaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa ka oo dhahayo markii la weydiiyay shaqo la qabto maxaa u fadli badan wuxuu yiri amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur qofka gacantiisa waxa ay qabato iyo maaragtay ganacsi walba oo xalaal ah ganacsi waa inuu xalaal ahaada marka Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda ayaa maalin salaama ya rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka soo arkaya gacantiisa adag gacantiyo deesay u shaqeynaysa beer qodaya dhagax jibisaya ceel shubtaya qoryo gurtaya wax dhistaya gacantiyo adag buu arkay markaas wuxuu yiri inna hadhihi al-yad yuhibbuha Allah wa rasuluhu gacantan waa gacan Ilaahi ee rasuulkiisu jecel yihiin maxaa yeelay waxay ku adkaatay gacantan waxay ku adkaatay shaqadii ay qabanaysid dadka marka waxay u maleeyaan culimada diinka iyo wacyigelinta iyo masaajidada taas cibaado u maleeyaan cibaado taa kaliya ma aha bal taa cibaado ka weyn ayaa jirta oo dadkeenu aanu ogeyn maxaa yeelay amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur qofka gacantiisa wuxuu ku qabsado maxay iyo ganacsi walbo xalaal ah waa wallahi salaada soonka zakada waxaan maaragtay la masaajidada quraan akhriska imaamnimada khitaabada wallahi waxa ka qiimi badan wallahi baan ku dhaartay ficilka qofka uu qabanayo oo ummaddu wax uu qabanayo waxaad garanaysaan ninkii xoog weynaa ee muruqa lahaa ee dadaalayay ee soo agmaray rasuulka iyo saxaabadiisa radhiyallahu alayhim mid baa markuu wuxuu yiri alla xoogan ninkii tilmaamaya alla xoogan ee dadaalkan ninkan dhididkiisa alla fi sabilillah hadii ay noqon lahayd في سبيل الله ما أنتوا ولا جيدا تمساجدك واحد يسد جهاد أيو ولا جيدا لكن رسولك وكدي صلى الله عليه وسلم وحجر إن كان حوجيسا هدي المير أو كبيلايو المير أو دله هدو وسو حوجنا وديده وحقوق قبنا فهو في سبيل الله هدي هو يوايله وكقودينايو أنتو سوق قبتو شقة نجح سو جبيو بير سوق قود جيدا سو جبيو مارك عيل سو شبو بير سو فلا هدي هو وحقوق قبنا أبو وايله فهو في سبيل الله هدي وسنة هو لهين وارد لهين أبدنا لهين لكن السق وكدورنا يوجيسا إني قعنتي هوس العضو إنه شحات هدي أورو إنه ما ركتاي هدو كدور سنة أو قعنتي إنه سريس أوربو فهو في سبيل الله ساسوا مركز شقادة قعنت لا يغبره مركز دان يردي أيام واحد دوني إن أن بلوح وقبته أو أن كل رجليو قال إن هدي وحكوايين إن حوج أنا وحكوايين إلا إله عافمات بوسي حوج بوسية إن بيرها قضان إن تمجران إن هالبليال نقضان وبيجا جالان وحكسو صاران بد جالان ملاي دبتان قري صو قران إيبيان فرشحن سميان إلا لبي 8 سنة يكبدني وحبرنا يين لكن مركز لأن يردينا wargacantu waxa laga qabto war muruqmaal hal la sameeyo beer hal la qodo ceel hal la shubo waxay ku leeyihiin wadaadada waxaan eeygayba qabanayn ay anaga noo tilmaamayaan marka taas fikirkaasaan meesha uga saara ayaa waxaan doonay inaan ka soo baxa masaajidadii
oo aan imaado bulshada dhexdeedii dhalinyarada u imaado dharkoodii inaan xidho hadda waxa aan dhiirigelinaya inaan xidho anigu tuma jara maahi dhagaxna ma jibiye birna ma tumi ceelna ma shubi beerna ma qodi dhagaxna kama shaqeyn ardayaan ah oo wax bartaa laakiin haddana wixii waan garanayaa oo maaragtay maanta haddii waa ku shaqaysan karaa dhalinyarada saan u dhiirigeliya marka waa inaan dharkoodii xidha oo aan dhaha war waa kan wixii waa wax fudud anigoona hore u qabanin ayaanba imika qabanayaa haddii aan professional ka dhigataana waa ajir baad ka helaysaan yacni waa waxaa iigu darneed maraan tegey magaalada Kismaayo oo aan u tagay dadka biraha tuma anoo dhiirigelinaya maalintii aan meesha istaagay oo aan raggii salaamay biraha tumayay ayay mid way horta way murugeen waxay yiraahdeen Kenya ma tahay mas'uulaalkii Kenya waan ahay marka waxa la yiri biyo hadaan ku siinno ma naga cabaysaa bay dhaheen biyo ma naga cabay yani fiirihi dadka sida loo kala geeyay wajeer waa sidaas gaarisa ku tumbiratum waa sida mandheero waa sida meel walba Soomaali joogto waa sida ma yani waxoogo kala tag baa jira iyagana waxay walaalaheena dareemayaan xaqiraad in la xaqireebay dareemayaan markaas la biyo naga cabi waxay walaalkay baa tahay maxaan kaaga cabaynin waa ka cabaya biyo aleekeen waan cabay waxaan waliba biyo kaliya kuugu iimaan inaan ka cabo walaalkaygiyo waxaan rabaa inaan biri imaado dharkaaga xidho garabkaaga fariisto birta dabka wada gashano inaan kula garaaco oo aan waliba kula dhidido oo waxaan rabaa aan waliba dhiirigeliyo shaqadan gacantii aad qabataan inay shaqo shariifada tahay oo loo baahan yahay sidii baan yeelay maalinka dambaan imid sidii baan yeelay runtii meediyaha in badan waa ku aragteen uurka walaalahay farxad baan geliyay runtii maantana waxa way ku faanayaan shaqadooda inay qabtaan adduunkan waad garanaysaan waxa ummadii ku hormartaa waa sinaacada waa warshadaha waa biraha ayaa lagu hormaray marka meel walbo madax ay joogto waxaan waliba hadda ku dhiirigelinayaa walaalaheena in wax loo qabto in guryahooda loo qurxiyo in qalab la sameeyo seminar ilaa si hore primitive waayidii hore wali wax u garaacayaan in seminar loo furo in qalab yar loo keeno in waxyaabo far badan oo China la inooga keeno in iyagii ay inoo sameeyaan iyagana shaqo dhalinyaradeenna in badan dibadaha markay tagaan biraha tumaan dhalinyaradeenna waliba looma ogolaado shaqada shahaada laga rabaa waa inuu qofka shahaada haysta laakiin dhulkoodii hooyo markay joogaan waxa way wax badan bay qaban karaan dadka madaxda waxaan ku dhiirigelinayaa runtii iyagana ajir bay ka helayaan dhalinyarada shaqo abuur in loo sameeyo oo waliba birahaasi iyo sanaacadaas iyo warshadaas looga sameeyo runtii in badan baa aan guuleysan lahayn waxyaabaha marka kale aan ku dhiirigeliyo dhalinyaradan waxa kamid ah ubadka iyo waalidkooda inaan xiriiriyo maxaa yeelay hooyooyinka waa la dayacay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu qofkii xasan idin sameeya u abaalguda diinteena diin abaalgud waay wahal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan hadii wanaag lagu sameeyo abaalkiisu waa wanaag kale wax wanaag noo sameeyo hooyay aabba ugu horeey khaasatan hooyada caloosha nagu soo qaaday 9 bilood labada sano nuujinaysay inta naga taxadaraysay luqadana bartay marka maxaa la rabaa waa la dayacay inaan la dayacin wabil waalidayni ihsanan in hooyay aabba ihsan loo sameeyo hooyana 75 boqolkiiba noloshaada xoogaaga farxadaada wax qabadkaaga leedahay aabana 25 uu leeyahay inaan baari u noqono waadna garanaysaan kabaa'ir ilaahay laga galo dambi ilaahay laga galo dambiga u weyn waad iska garan kartaan waxa waaye shirkiga iyo caaqul waalideynka iyo been abuurka